maalinba maalinta ka dambaysa waxa ay soo tarayeen doorka ay qurbajoogga reer Soomaaliland ka qaataan horumarka iyo maalgashiga wadankooda. Ifraax Aadan Faarax waxa ay ka mid tahay qurbajoogga reer Soomaaliland ee muddo wadanka ku sugnaa. Waxay dalkeedu hooyo ka hirgelisay mashaariic kala duwan iyo meherado casri ah. Waxaana ay nooga waramaysaa baldoorka horumareed ee wadanka iyo meheradaha ay furtay iyo adeegga ay bulshada u hayso. waxaan anigu bilaabay businesskan adigu 4 sano ka hor Mareykan baan markii hore deganaa markii ugu horeysaan wadanka soo booqday waxaan arkay waxyaabo badan oo wadanka ay ka maqan expertise-kaygu inuu aad uga maqan yahay markaan decide gareeyay inaan soo guuro wuxuu ugu horeeyay ka fikiray waxa weeye inaan wax cusub ku soo kordhiyo wadanka ay ka mid tahay guriga qurxinta ama qurxinta meheradaha guryaha hoteelada any home decor business ka marka waxaan bilaabay dukaankan inaan furo alxamdulillah waxyaabo badan markii ugu horeysay dadkeenu waxyaabo badan aanay aqoonin ayaan baray maxay ahayd sida kaladhada la isu raaciyo sida maxay ahayd patterns kala isku raaciyo alaabooyin badan oo aanay haysanin ayaan keenay oo wadanka oolin baan keenay waxaan kale isku dayay inaan shirkad kale oo private baan leeyahay oo home decor ka ah marka hoteelada iyo maxay ahayd dukaanada dadka furanaya dadka maxay ahayd meheradaha furanaya ayaan ka caawiyaa decor-ka waxaan isku dayay inaan maxay ahayd waxyaabo badan oo decor-ka la ka caawinaya dadka umadeena iyo xataa weel iyo dhoobooyin loogu talagalay dadku markay casuumadaha ay leeyihiin iyo xafladaha marka alxamdulillah successful buu noqday businesskaygu aad buu u shaqeeyay magaalada dadkii wadanka aad bay u soo dhaweeyeen geesta kalena Marwey Ifraax Aadan Faarax waxay ugu baaqday bulshada reer Soomaaliland ee gudaha dibadba in wadankooda ay ku soo dhiiradaan oo ay maal gashadaan si ay wadanku horumar u sameeyo waxa sidoo kale ay ka hadashay arrinta shaqo la'aanta oo ay soo bandhigtay qorshayaal dhalinyarada shaqo loogu abuurayo si ay horumar u sameeyaan dadaalada kala duwan ee dadka qurbajoogga ay wadanka ka fulinayaan ayaa waxa inta badan door muhiim ah ka qaata dumarka qurbaha ka soo laabta oo iyagu la xajalo gaar wadankooda kale waxaana jira siyaasad horumareed ee dawladda Soomaaliland ay u qorshaysay dadka qurbajoogga taasoo la hirgeliyay wakaaladda qurbajoogga si ay maalgashi wadankooda u sameeyaan dhalinyarada reer Soomaaliland waxaan rabaa inaan message u diro inuu qof waliba uu leeyahay talent ilaahay siiyay maxay ahayd inuu talentkiisa isticmaalo oo maxay ahayd uu ku dadaalo inuu hore u sii mariyo waxyaabo badan oo wadankeenu u baahan yahay baa jira siyaabo badan oo shaqooyin ay u abuuri karaan baa jira especially hablaha waxaan leeyahay guryaha ha fadhiina mid waliba waxa try garaysaa inaad discover garaysid oo talentkaaga aad ogaatid oo maxay ahayd bilowdid inaad sidaad u soo saari lahayd uga ganacsan kari lahayd inaad isku daydid dadka qurbajoogga ah maxay ahayd maanta halkan inaga daawanayana waxaan leeyahay wadankeenu aad iyo aad buu u wanaagsan yahay waxyaabo badan oo aanaynu qurbaha ku haysanin baynu wadankeenu wayna siinayaa waa wadankii hooyo haddaydin isku daya inaydin wadanka maxay ahayd wax ku darsataan hadday noqoto xagga shaqo abuurka iyo hadday noqoto xagga khibradda aydin maxay ahayd haysaan